wacan saaxiibada sharafta leh maanta waxaan jeclaystay inaan idiin soo gudbiyo muuqaalkan runtii in badan ayaan ku fikiray duubistiisa balse iima saamixin maanta ayaan ugu dambeyn helay jaanis runtii aan idinkugu soo gudbiyo muuqaalkan isla markaana la wadaaga bal sheeko ku saabsan aniga safarkayga laga soo bilaabo min Soomaaliya ilaa halkan hadda aan joogo ee Cape Town safar runtii qaatay hal sano hadda waa 1 year safar qaatay sheekada barnaamijkan runtii marar badan ayaan jeclaystay inaan idiin soo gudbiyo si aniga taariikh meel ku xusan oo meel loogu laabta leh iigu noqoto aniga iyo dadka safarkaas aan soo wada galnay inkastoo qaarkood maanta adduunkan aysan joogin iyo sidoo kale bal inaan la wadaago dadka Soomaaliyeed ee muuqaalkan daawan doono inay jiraan safaro la mid ah ama ka daranba safarada dadku ay u maraan Yurub ee la sii maro magafe Talyaaniga ilaa maxaa la yiraahdaa Malta iyo meelo la mid ah muuqaalkan saaxiibayaal ayaan jeclaystay in idin la wadaago anigoo ka bilaabi doono safarkayga laga soo bilaabo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ilaa laga soo gaaro magaalada Cape Town oo ka mid ah caasimadaha waddankan Koonfur Afrika muuqaalkana wuxuu ku bilaaban doonaa sida tan sanadku wuxuu ahaa 2011 bishii afaraad markii ugu horeysay ee aan safar dibadda ah ama waddanka banaankiisa ah aan u soo baxo runtii safarku wuxuu ahaa mid dhulka ah oo gaari caasi ah ayaa waxaan ka soo raacnay magaalada ama aan dhahay ceelasha biyaha isla markaana gaarigaas oo ku soo wajahnaa ama na keenayay ilaa magaalada Dobley inta aan ka xasuusto safarka ama dadka safrayay waxay u badnaayeen dhalinyaro qaarkood ayaa waxay ku soo wajahnaan waddanka Koonfur Afrika qaar kale ayaa ku wajahnaa magafe ilaa Yurub qaar kale oo aan badnayna oo safarku waxa uu ka ekaa magaalada Nairobi ee waddanka Kenya saaxiibayaal safarku runtii dhibkiisu aad ayuu u yaraa marka laga reebo roobab xilligaas da'ay oo meel walbaba dhiiqo ka dhigay taas oo runtii nagu qasabtay magaalada Muqdisho ilaa Dobley inaan u soo socono 5 maalin iyo 5 habeen runtii marka laga reebo safarka uu aad noogu dheeraa inta kale waxa iska ahayd okay wax dhibaato ah maysan jirin balse safarku iyo tahriibkaba waxay ka bilowdeen Dobley ilaa Nairobi runtii waqti badan naguma qaadan balse runtii waqti maxaa la yiraahdaa aan qiyaasayo saacado ayay nagu qaadatay dadku runtii waxay ahaayeen kuwa gaariga saarnaanaya hal saacad kalena la lugaysiinayo oo maxaa la yiraahdaa meelo qardajeex ah la marsiinayo ugu dambeyn waxaan gaarnay magaalada Nairobi annagoo wada caafimaad qabno wax dhibaato ahna aysan naga soo gaarin safarkii halkaas ayaa dadka lagu kala shaandheeyay qof walbana safarkiisa meesha uu ku wajahnaa ayuu qabtay in kooban oo aanan badnayn ayaa waxaan u socday waddanka Koonfur Afrika intaas kooban oo aan anigu ku jiro 2 habeen oo aan seexanay lodge ama hotel ku yaala xaafadda Eastleigh ee Nairobi kadib waxaana loo soo qaaday magaalada Mombasa oo safarka runtii uu ka bilaabanayay Mombasa meesha dadka lagu aruurinayay isla markaana la isugu keenayay runtii oo aad ugu dhow meesha xeebta ah ee badda maxaa la yiraahdaa dadka doonta laga saaro runtii waxaa la isugu keenay dad gaaraya 102 ruux oo runtii kala bar ay yihiin Soomaali inta kalena Ethiopian ama aan dhahay 52 ruux oo Ethiopian ah iyo 50 kale oo Soomaali ah ayaa doon runtii aad u weyn isla markaana 2 matoor lahayd naga soo qaaday magaalada Mombasa ee waddanka Kenya taas oo runtii sii mareysay badaha Tanzania ilaa maxaa la yiraahdaa ku sii wajahnayd Mozambique saaxiibayaal doonta runtii waxay ahayd mid aad u ballaaran badda runtii ma aysan ahayn mid kacsan marka laga reebo mararka qaar oo baddu kacaysay isla markaana doontu biyo ay soo galayeen safarka runtii ilaa Mozambique laga gaarayo wax dhibaato ah oo aad u weyn ma aysan jirin sidoo kale doonta dhexdeeda baahi iyo rafaad kama aysan jirin oo dadka doonta watay ayaa runtii waxay ku dhaxaysteen ganacsi yar oo dadku waxay ka iibinayeen cabitaano yar iyo rooti iyo waxyaabo la mid ah runtii waxyaabahan ka xasuusto waxaa ka mid ah in dadka qaar doonta oo nala saaraa oo runtii Mombasa ilaa laga soo gaaro Mozambique wax watay
waxyaabaha maandooriyaha ah ee sida sigaarka iyo jaadka oo kale oo runtii doonta korkooda ayba ugu baraxneed. ugu dambayn 6 maalin iyo 6 habeen oo aan badda ku soo jirnay runtii waxaan soo gaarnay meel xeeb ah oo ama jasiirad ka tirsan Mozambique oo runtii maxaa la yidhahdaa iminka magaceeda aan xasuusan karin ayay doontu nagu soo daadisay abaaro 4 subaxnimo. dadku runtii waxuu ahaa 4 subaxnimo. runtii dadka deegaanka ayaa waxay isla markiiba bilaabeen inayna baartaan ama waxay isku dayayseen in wax walba aan haysano ay naga qaataan, balse dagaal iyo iska caabin aan la galnay kadib ayaa sababtay in lagu yeero ciidamo halkaas aan ka dheereen. ciidamada runtii markii ay yimaadeen anagu waxaan aaminsanayn in la badbaadin doono, isla markaana ciidamada ayna geyn doonaan xero qaxooti oo halkaa ku taalay oo dadka laga sii qaadi jiray ilaa South Africa. balse ciidamada ayaa runtii waxay bilaabeen inayna baartaan wax allaala iyo wax aan haysano ay naga qaataan. baarasho kadib iyo qof walba wixii lacag uu haysto jeebka ugu jiray iyo boorsooyin dharkii ahaa markii ay naga reebeen ay runtii waxay ina geliyeen safar oo markaa dhulka ah oo la soconayay runtii waqti muddo aan ku qiyaaso 4 saacadood kadib ayaa waxayna gaarsiiyeen dhanka kale ee maxaa la yidhahdaa ama doonta meel laga raacayay oo isla markaana jasiiradda dhankeeda kale looga tallaabayay. xeebtaa runtii waxyaabihii ka dhacay wax xasuusan karo dadkii xilligaas meesha maray. runtii nasiib wanaag annaga ahaan doontiina waxay ahaayeen rag waxa saaraa oo dumar kuma aysan jirin, balse waxaa ku jiray dhalinyaro aad u yaryar oo qaarkood xilligaa aan ku qiyaasayey 14 jiro weliba aanan qaan gaarin weliba. runtii aniga ahaan xilligaas da'deedu aad ayay u yareed oo cunug yar ayaan ahaa, qaarkoodna aniga ayayba iga sii yaraayeen. runtii mid ka mid ah ayaga ama ciidankaas ayaa waxa uu ku amray in loo soo jaro ula dhaadheer oo runtii uu doonayay in qof walba oo annaga naga mid ah jirkiisa uu ku dhigo calaamad in case haddii uu tomorrow soo laabto safar kale isku soo dayo in calaamadaas looga fiiriyo kii lagu arkana halkaas lagu dilo. runtii waxaa jiray sida aan maqalnay oo dad annaga inoogu horreeyey oo aan is arki doono nooga sheekeeyeen in dhalinyaro Soomaaliyeed halkaas lagu toogtay isla markaana meydadkooda halkaas lagu aasay. laga yaabo ilaa maanta in familkooda ay raadinayaan dadkaas.